بسم الله الرحمن الرحيم. صباح wanaagsan. insha Allah maanta waxaynu bilaabi doonaa aynu drawing commands ugu muhiimsan qofka structural engineer ka barnaamijkan ka isticmaali doono uu sida ujeedin insha Allah waxaan soo qaybiyay 8 command aan aaminsana waa maxay 8 ugu muhiimsan ay tahay inaad waa maxay mid kasta sida loo activate karayo qaabka loo isticmaalo iyo waa maxay inaad fahanto iyo qaabka waliba adigoo raacaya waa maxay inaad commandigaaga aad si speed leh waa maxay aad balankaaga ama designkaaga aad u samayso wadada mustaqbalka waxa la isku dhaafayaa bas waxa weeye qof kasta commands waa baran karo qof kasta waa maxay barnaamijka waa baran karaa qof kasta wuxuu kara maanta taan AutoCAD ayaan rabaa inaan barto wadada waa maxay shirkadda Autodesk inaan wadada shahaado muxtaram aan ka qaato ilaa 12 isbuuc ka badan waxaan rabaa inaan barnaamijka barto oo laakiin waa maxay at the end of the day command ama laba command ama waa maxay 8 command hadda aan soo koobay oo kale kaliya uu ka isticmaalo intii kale tan waa maxay oo waxba ka isticmaalin oo halka ku dhumiyo juhdi halka ku dhumiyo waqti soo xagalatay maaha marka priority-gan koowaad waxa weeye inaynu shaygan si sax ah u barano waxa anaga inaga khuseeyo inaynu barano iyo shayga ugu muhiimsan waa maxay seeban aniga hodoti design-ka aan sameynayo aan si waqti yar aan ugu soo saari karaa soo xagalatay waxa laga yaabaa qof engineer inuu maxay mashruuca ama project-ka loo dhiibo oo 4 isbuuc iyo waa maxay iyo 5 isbuuc ay ku qaadato inuu waa maxay ku soo sawiro oo mashruuciisa ku soo dhameeyo halka waa maxay engineer kale laga yaabo isbuuc ama wax ka yar 2 maalmood 3 maalmood inuu waa maxay mashruuciisa ku soo design gareeyo waxa la isku dhaafay waxa weeye waa speed-ka waa maxay labada engineer waa maxay mashruuca loo dhiibay hodhotin waxa lagu qiimeyn doonaa shaqo kasta aad qabanaysid ama meel kasta aad u shaqaynaysid waa speed-kaas soo xagalatay marka commands-ka ugu muhiimsan drawing-kan hadda maanta isticmaali doono waa 8 mid kasta korkeeda waan tagi doonaa inuu sharaxi doonaa aynu inta inooga muhiimsan anagoo ka isticmaali doonaa aynu si aynu u soo saarno aynu mustaqbalka plan saan oo kale tahay ama mashruuc product saan oo kale tahay aynu u design garano waliba waqti kooban iyo waa maxay juhdi aad u yar waa maxay inaynu design-keena aynu si fudud aynu soo saari karno aynu qaabkan kuwan aynu tusay dabcan waa maxay waa design aynu soo dejiyeen waa maxay structural engineer haway architectural engineers ay soo dejiyeen ay soo design gareeyeen marka hadafkeenu waxa weeye inaan plan saan oo kale si fudud aynu u waa maxay u design gareeyeen ama aynu ugu sawirno barnaamijkan ugu isticmaalayna marka waxaan doonayaa waxa weeye inta aanan bilaabin hadii aan imaado waa maxay midalan qayb saan oo kale banaan ama waa maxay tab banaan saan oo kale inta aanan bilaabin drawing ama inta aanan bilaabin waa maxay aanan gelin command-ga ugu horeeya uu yahay line inta aanan bilaabin waxaan doonayaa inaan laba shay inaan isla fahanno labada shay aan rabno maanta inaan aad isla fahanno waxa weeye marka ugu horeysa in isha aad ku hayso qaybtan hoose aad arkaysiinaad qaybtan waxa la yiraahdaa command bar-ka waa meesha waa maxay adiga barnaamijka communication aad ka helaysiin adiga barnaamijka waxa weeye meesha xiriirkiina waa maxay uu ka aasaasmay waa meesha waa maxay barnaamijkaaga sheegay waa maxay next step-kaaga maxuu waxa weeye uu noqon doona aad sameyn doonto maxaa lagaaga baahan yahay inaad waa maxay aad sameysay markii aad ay command aad waa maxay active ka dhigto aad soo xagalatay markasta hubinta marka mustaqbalka in wax design gareynayno waxaan doonayaa inaad isha ku hayso qaybtan hoose ee command bar-ka okay mid labaad aan rabo waa maxay inaan isla aragnaa waxa weeye inaan marka ugu horeysa isla saxna waa maxay unities-ka aynu barnaamijka isticmaali doonaa waxaynu wax ku cabiri doonaa barnaamijkan okay marka unities-ka hadii aynu galno toos waxaan ku qorayaa keyboard-kayga unities saas oo kaleeto unities ayaan ku qorayaa enter ayaan leeyahay waxa ku soo furmaya shaashadan aad arkaysay marka qaybtan ugu sareysa wuxuu ku leeyahay length-kaaga ama dhererkaaga maxaad rabtaa inaad ku cabirto type-ka muxuu noqon karaa ma structural buu noqon karaa ma decimal buu noqon doonaa ma engineering buu noqon doonaa ma fractional buu noqon doonaa ma scientific buu noqon doonaa marka anaga ahaan waxaynu ku fariisanaynaa qaabkiisa caadiga default-ga decimal ayaynu ku dhageynaa precision-kiisa wuxuu ku leeyahay ama diqada مثلا hadii aad haysto raqam fraction soo xagalatay ma point dhexda uga jiro ilaa intee baad doonaysaa waa maxay number inay point-ga ka dambayso marka precision-kayga مثلا waxaan ka dhigayaa waa maxay 2 inay ka dambayso dhoti si waa maxay uusan rounding u sameyn soo xagalatay maaha
diqadiina waa maxay مثلا hadii rood shayga aan meter aan isticmaali aan rabo inaan shay centimeter ahaan u sawiro مثلا darbiga kale taan dhaho waa maxay 25 centimeter way sumkigiisa ama thicknesskiisu soo garatay ma inaan 0.25 aan automatically u qoro horta markaan cabirka waa maxay aan mastarada aan saarano inuu iisoo qoro waa maxay 0.25 laakiin hadii waa maxay aan hal point aan ka daba dhigo soo garatay ma round ayuu sameeynaya numberkayga waxa laga yaabaa inuu 0.3 u dhawo cabir khaldan uu siiyo marka laba zero ayaan saa ugu fariisanaynaa aynu maxaynu isticmaali doonaa maxaynu wax ku cabiri doonaa ama meter baynu wax ku cabiri doonaa ama feet baynu wax ku cabiri doonaa ama مثلا si kale hadii aan u dhigo hadii aan line sawiro hadii aan waa maxay arc sawiro hadii aan waa maxay maxaa uu shaygan maxaan ku cabirayaa waxaan ku cabirayaa aan maadaama aynu waxaan rabnaa inaan dib ugu noqono marka reality maxaynu anagu qabanaynaa maxaynu design aynu sameynayno wuxuu yahay uu soo xagalatay marka hadii balankayga hore oo kale to ma ku noqon karo ay kana ay furan welito hadii aan cancel iska dhaho balankayga hore hadii aan ku noqdo waxaad arkaysaa waxa weeye inaan waxaan cabiray waa maxay spaces aan kala tahay space qol gudihiisa soo xagalatay ma qaybta waa maxay reception-kii oo kale to waxaad arkaysaa aad suuliyaashii oo kale to qolka istiqbaalka oo kale reception-ka qolka hurdada master room-kii balakoonaadkii soo xagalatay ma in spaces noocaas oo kale taan u qaybin doonaan marka spaces noocaas markaan qaybin doono aan qaybinayo waxa ku wanaagsan tahay maxay cabirka meter aan ku cabirto aan soo xagalatay ma marka units hadii aan saa ugu noqdo waxaan leeyahay waxaan wax ku cabiraya mustaqbalka waxa ay noqon doonaan ay meter okay qaybtan kale ee angle-ka khusaysa hadii aan ku noqdo wuxuu ku leeyahay qaybta angle-ka maxaad wax ku cabiraysaa angle-kaaga ma decimal degrees ba wax ku cabiraysaa ma degree iyo minute iyo second ba wax ku cabiraysaa angle-kaaga ku cabiraysaa ma radian baad isticmaalaysaa maxaad isticmaali doontaa marka qaybkaas waxaan ka dhigi doonaa decimal degrees caadiga degree-ga caadiga aan aqaanay inaan ka dhigto aan automatically aan sidaas okay ku dhawaan marka sidaas waxaan ku saxnay unitskeeni aynu isticmaali doonaa aynu toos waxaan u galeynaa marka dirtaan command-skeena command-ga ugu horeeya waxa weeye waa line-ka waxaan u soo dooran karaa saddexaad qaybta ugu sareysa hadaad aragto ribbon-kayga corner-ka waxaad arkaysaa inuu ku leeyahay line inaad halkaas aan line-ka aan active ka soo dhigi karo aan mouse-kayga hadii aan soo raacana aan imaan karo aan hadii aan imaado waxa weeye drawing area-deeda inuu ileeyahay waa maxay specify the first point ama waa maxay point-ga koobaad specify garee sidoo kale tana meesha aan kula isha ku qabo command bar qaybta hoose hadii aad aragtid inuu ku leeyahay isla amarkii kaleeto specify the first point marka waxaad arkaysaa in halkan inuu mouse-kiina iga tusay in waa maxay command bar-kiina waa maxay isla amarkii iga tusay marka hadii aan doonayo waa maxay command bar-ka bas inuu amarka iga siiyo waxaan imaan doonaa aan qaybtan hoose soo xagaratay qaybtan hoose shariidkan hoose yaala ayaan imaanayaa waxaan off ka dhigayaa wax la yiraahdo dynamic input on buu hadda yahay off hadii aan waxaad arkaysaa inuu amarka ama next step-kayga wax laga doonayo inaan sameeyo inuu iga siinayo bas command bar-kayga hoose marka axsan aan labada qayb inuu waa maxay uu ka siiyo si markasta aad ishaada aan qaybta hoose aad la soo aadin aad u fiirin markasta command bar-kaaga hoose marka habka koowaad aan line ku soo dooran karo waa maxay inaan iri waa maxay isticmaaliya ribbon-kayga inaan waa maxay qaybta sare ee line halka ka soo dooran karo qaybta labaad waxa weeye aan ka soo dooran karo line-ka inaan isticmaalo menu bar-ka dabcan waxaad arkaysaa menu bar-ka halka inuu saada ii muuqan si aan waa maxay u soo muujiyo waxaan imaan karaa waa maxay calaamadda tan halkan taala aan saa soo furi karaa aan hoos ayaan imaan karaa waxaan dhigi karaa show menu bar aan saas u dhigi karaa waxaad arkaysaa inuu menu bar-kayga toos automatically u yimi marka inaan soo furo waa maxay menu-gan draw soo xagaratay ma aan line halka ka soo doorto isla qaabkii kaleeto soo xagaratay ma marka menu bar-ka waxaan ka soo activate gareyn karaa waa maxay calaamadan hoose ama command-gayga caadiga ah halkaan oo kaleeto ayaan imaan karaa waxaan ku qori karaa menu bar enter ayaan dhigi karaa marka hees qaybta hoose wuxuu ku leeyahay enter the value of the menu bar-ka value-giisa geli hadeertan waxa uu kugu fadhiyaa waa 1 waxaad arkaysaa 1 inuu labada calaamadood waa greater than iyo less than labada dhinac kaaga fariisi marka calaamad kasta aad aragto number kasta aad aragto labada calaamadood labada gees ka xigaanay waa maxay wuxuu ku muujinayaa command-ga sida default-ga hadda number 1 buu hadda ku yahay yani number 1 wuxuu ka wadaa waa maxay active hadda ku yahay waad arkaysaa shaashada qaybta sare soo xagaratay ma waad arkaysaa marka hadii aan doonayo waa maxay inaan qariyo مثلا waxaan qorayaa waa maxay 0 ayaan ka dhigayaa enter ayaan leeyahay waa maxay saas ayuu qarsoomay haddaan rabo inaan soo celiyo waxaan dhahayaa menu bar enter soo xagaratay ma hadda muxuu igu fadhiyaa 0 waa maxay iga qarsoon yahay haddaan rabo inaan soo muujiyo waxaan ku qorayaa 1 soo xagaratay ma
enter ayaan leeyahay saas ayuu igu soo muuqanayaa. habka saddexaad ee waxa weeye aan line-ka usoo dooran kara waxa weeye in aan keyboardkayga caadiga aan ugu qoro line saas oo kaleeto aan line aan saas ugu qoro aan enter dhaho, ama in aan usoo gaabiyo bas xarafka L soo xagaratay inaan usoo gaabiyo xarafka L waa maxay ku leeyahay L waxay u taagan tahay line soo xagaratay aan enter saa u dhaho aan. okay marka aan dib ugu noqonayno waxaan dhahnaa line-ka waxaan usoo dooran karnaa aynu saddex soo xagaratay habka koowaad waxa weeyaan ribbonka isticmaalay inaan line ka soo doorto aan, ama waa maxay aan menu parkayga isticmaalay inaan draw intaan qaymada draw tago aan line sa usoo dooran karo aan, ama waa maxay comment caadi inaan siin karo xarafka L, ama waa maxay inaan dhihi karo line saas oo kale asagoo spellingkiisa saxa aan ku qori karo aan, labadaba waan samayn karaa aan. marka enter ayaan leeyahay line-kayga markuu active saa igu noqdo waxaad arkaysaa inuu ku leeyahay specify the first point ama waxaad specify karaysaa pointiga koobaad xagee buu noqonayaa. marka line-ka waxaan u sawiri karaa aan barnaamijka intaan isticmaali doono laba qaab. waxaan u isticmaali karaa waa maxay Cartesian coordinate systemkii caadiga ahaa ee x y soo xagaratay anda waa maxay coordinates ayaan haystaa aan, pointiga koobaad waxaad ii dhigtaa point coordinateskaas, pointiga labaadna waxay dhigtaa aad مثلا coordinates kaleeto mucayana. okay marka pointiga koobaad hadeertan haddii aan dhaho مثلا waxaad ii dhigtaa aad 0,0 ii dhig. marka waxaan qorayaa 0 si aan waa maxay aan taabka kaleeto u galo waxaan taabanayaa aan xarafka tab waxaan leeyahay buttonka tab keyboardkayga tab ayaan leeyahay wuxuu ii geenayaa waa maxay boxka labaad waxaan dhahayaa 0. okay enter ayaan leeyahay aan soo xagaratay waxaad arkaysaa waxa weeye in uu line-kii pointiga koobaad uu ku dhigay waa maxay 0,0 aad arkaysa x iyo y daadii soo xagaratay Cartesian coordinate systemka caadiga ah pointiga koobaadna ku dhigay 0,0 laakiinse uusan ilaa hadda garan karin uu line-ka ma line slope ahba ma line waa maxay muxuu noqon doonaa vertical wuxuu noqon doonaa line horizontal soo xagaratay pointiga labaad ilaa hadda uusan garanayn. marka haddii aynu fiirino mouse-kayga wuxuu leeyahay specify the next point ama qaybta hoose haddii aynu fiirino ku leeyahay specify the next point pointiga labaad ee line-ka specify garee ama waa maxay muuji. marka weli coordinates ayaan siinaya waxaan leeyahay مثلا waxaad ii dhigtaa line-ka labaadna waxaad ii dhigtaa 100 مثلا 100 coordinateska 100 ii dhig baan leeyahay. marka waxaan leeyahay 100 oo ah x soo xagaratay waxaan rabaa marka 100 oo y inaan tago aan. markaan tab ma isticmaali karo waxaan isticmaalayaa waa maxay xarafka wow ee keyboardkayga. hadduu keyboardkaaga carabi ku qoran yahay waxaad arkaysaa xarafka wow waa maxay m ayuu dhinaca waa maxay midig ka xiga waa numberka m dhanka midig ka xiga, ama waa maxay waxa ku sawiran calaamada less than. marka xarafkaas ayaan taabanayaa aan soo xagaratay wuxuu ii keenayaa waa maxay boxkii labaad ee caadiga hore aan usoo aragnay. waxaan leeyahay numberka labaadna oo y waxaad iga dhigtaa 100 enter ayaan saa u leeyahay aan. automatically waxaad arkaysaa inuu line uu saa kuu sawiray uu ku leeyahay, laakiinse waa maxay line-kii amarkii muuli hore baa rabtaa inuu sii socoto aad waa maxay aad line-kii aad sii sawirto aad, ama waa maxay halkaas aad uga hari kartaa. marka amarkii ayaa weli ku jira waad arkaysaa, laakiin line-ka waxaad arkaysaa qayb fixed ayaa jirta waa maxay automatically fixed noqotay waa maxay kuu sawirmatay adoo waa maxay siiyey pointiga koobaad iyo waa maxay pointiga labaad halkaan soo xagaratay line-kaas markii fixed buu kuu noqday uu line-ka. marka ma rabtaa inaad sii wadato mise waxaad rabto amarka inaan ka baxdo. waxaan leeyahay مثلا amarka inaan ka baxan doonayaan amarka haddii aan rabo line-ka inaan ka baxo waxaan taabanayaa xarafka escape keyboardkayga escape. markii aan saa u dhaho waxaad arkaysaa aad in uu line-kii ka baxay amarkii line uu saas igu soo wareegto aan sawiray. marka line-kan uu ku sawiray pointiga koowaad wuxuu ku yaalaa 00 pointiga dambena wuxuu ku yaalaa 100 soo xagaratay marka any point hadii keyboardkayga ama maxaa line-kayga aan tan ugu soo dhawaad aan click siiyo highlight igu saarmo haddii aan ay corner saan kaleeto aan mouse-kayga ugu soo dhaweeyo soo xagaratay afarkiiskan kaleeto haddii aan ugu soo dhaweeyo wuxuu ku leeyahay uu line-kaaga dhererkiisu waxa weeye 141.42 sidoo kale tan angle-kiisana waa maxay halkan hoose hadaad arkayso aad waa 135. marka waxaan rabaa aan inaan hubiyo line-kan ii saxsan yahay mise ii masaxsana. keyboardka waxaan imaanayaa waa maxay waxaan imaanayaa aan calculatorkayga soo furanayaa aan caadi Pythagorean theoremka caadiga aan isticmaali jiray aan waxaan leeyahay aan 100 square زائد 100 square. okay
ma ii saxsan yahay waad arkaysaa waxaad arkaysaa lineka dherarkiisu inuu noqonayo ama dilaca saddexaad inuu ii noqonayo waa maxay sayidka saddexaad 141.42 degree meter soo xagaratay maaha marka linekaas dherarkiisu ii saxsan yahay saasan ku hubiyay aan linekaasna waxaan ku sawiray anoo isticmaalay coordinates caadiya sidoo kale lineka haddii aan command-gayga matalan waa maxay ay place kaleetaan imaado aan command-gayga line aan taabto l aan taabto bes marka line waxba qori maayaan waxaan rabaa waayo wax ii muhiimsan waa maxay saan hore usoo sheegay waa speedka soo xagaratay ma qof kasta barnaamijka waa baran karaa uu soo xagaratay ma waana uu wax ku sawiri karaa laakiin soo dhato waxa la isku dhaafaya waa speedka marka lineka l ayaan saas kale usoo taabtay aan soo xagaratay ma markaan waxaan rabaa inaan lineka ku sawiro anoo isticmaalaya length iyo angle anoo isticmaalaya length iyo angle marka أي point أو كله تعدين يعني ماذا يصير randomly عن أطورته عن سواء قررت ما click عن سيو مركو اللي هي specify the first point لين كانوا كله point كاس كله تنكليك يري عن سواء قررت ما مركو محربا إن سيو length يعني إن سيو يو angle إن سيو عن مركو length كي محن نقنيه بكلية أو مركان حلايا هي length كي مثلا واحد يقدر يكتئاب بقول length كي واحد يقدر يكتئاب بقول أوكي وحربا مركو angle كينا إن سيو عن angle كنا نسيان مركا angle كدي أنا ربنا نسيو حنتابنا يا حركة tab keyboard كيجا tab يعني ري وحيكينا يا واحد أركي سوا محي قيبته angle كا سو حقرت هذا هاي الذي صار angle كجتين نقنية مثلا وحن ليه هي 60 degree ها محي angle كيجا يري انت ريان ليه أوكي أمر كأيام كتيران وليتو أمر كذا رأينا كبر حنتابنا escape أمر كذا صار بحان ومحي حنسا أصور عن line دين سأ أطابته واحد أركي ساعد مركان واي وحن سيئان مركان حسوسنو وحن سيئان دير بن سيئان مركان دير كلين كي قاعد دوام أوتوماتيكلي بقول بيجي النقطة وكذا أنجل كي سنة محيي النقطة بقول إلى واتن مركان بقول إلى واتن بهالكان إليه هو أنا ومح أنجل كي وح أنكو قري ده قريان وح أنكو قري لحنا طبعا صح حد أنا بقول إلى واتن بيليه واي هذا التنظيم كان إماده قيبتهم كلام حد أركيس إنه اللحن كلية هو قيبتهم مسدد دايركتين وامحي بقولي لواتن يعني وامحي بقولي لواتن وحنقدر تاع اللحن وحيسكب بحين سوا محي وحيسكب بحين ساعي بقولي سديتن صح وامح أنجل كنت تسكب بحين مركا هذا حجيبه الأنجل كان كعبر يعني وحو كعبر هو مح إكس أكسس كان وأنجل كان قيبتهم تصور بقولي لواتن سكوت لك هذه أنكون كان كلته إماده وحو كلية وامحي لحن شو حاجة تمام لحن marka haddii aan doonayo matalan line kale to 145 inaan sawiro aan dhigto sawirka waxaan leeyahay matalan line ka ayaan dooranayaa l wax kale teema halkaan oo kale to soo xagaratay waxaan leeyahay matalan line ka waxaan rabaa inuu dhererkiisu ii noqdo 70 soo xagaratay maaha angle kiisana waxaan rabaa inuu ii noqdo matalan 90 okay waa maxay 90 yani waa maxay straight wuxuu noqonayaa vertical okay محلين بعد ذلك ساعة بدن كليك سأوسيو عن أي كورنر ما ده حضرتك ساعة درك سينو يتطبعتن أنجل كيسن إنه يهي 90 degree ومحي line vertical مركا line كا دي أن line ساعة كلا توصل دورتو حضرتك ساعة line كيجا إن أي أنجل أندوني أن تصوري كران سو حكرت ما أنا استعمالي بس ومحي إن أحدده بوينتيد وline كيجا يقول لي سو حكرت ما مثلا مركا قارب حندوني يا أن مركا قارب حندوني يا line كيجا كلا إنه يصور ما بس vertically ومحي horizontally بس سو حكرت ما وإنه جاري دونا مستقبل كان مرة ساس كله تعرفنا إنه أديك سنو أيمنو مركا واحد الأمر اللي يراد أورثو ومحل الأمر اللي يراد أورثوغوناليتي ومحل لاين كي أنا كلكتو لاين قول ومحي vertical أما ومحي horizontal على مرة قيبتهم هو ساعد دي أنا ماذا ده إيش أكو فيه واحد أركي ساعات على مدة سيدان 90 degree وكليتا يكون قرنت ومحي أورثوغونالي ومحي هذا أنا أوف إيه مركا دي أن أنده هدي أن أنسى أوده ومحي عن أي مكان أني بوينت أو محرن من أسا أدور صح هذا كيس لاين كيجا إنه هو محزي فيرتيكالي يو محزي هورزنتال بس يصور ميو وهو محي مكان وح أنجل وصن سينين أو صح قرأتي ما حجيبان أون كسائريان وحن كسائري ومحي قيبتها أورثوغوناليتي مركا هدي أندوني مثلا لاين سان كلتينا أدورته vertically horizontal أنا رأينا سلوب وبدش مركي بالك أنا أقولي أمريكا كوجرة عاد أدو أمريكا كوجرة قيبته وسئمو صح قرأتي ما orthogonality يعني هالمركلكسي of scaling صح قرأتي ما لين كاي وام حي مركا لين كاربت أياد جيدي كرتاعد أما سي شورت كلا إن استعماله كيبورد كاي أدو تابني حرف F8 قيبته سري كيبورد كاي F8 هدي أنت هتو هذا كي ساعد
in uu vertical ama horizontal usaa kugu yahay. marka badanaa waxaan doonayaa aan ina shortcutska inaad fahantiin aad waxba mouse-ka ha isticmaalin kaliya command caadiya soo wax garatay ma aad isticmaalin F8 soo wax garatay line baa dooratay مثلا saan oo kale taa soo wax garatay maaha haye wuxuu ka noqday waa maxay vertical iyo horizontal waxaan doonaysaa waa maxay in slope ama meel inaad ku qabato kartay F8 automatically haye waa kaasa soo wax garatay maaha meesha aad doonaysaa aad line-kaaga okay marka line-kayga inta ugu muhiimsan waa kaasa waxaan iri hadii aan summary ku sameeyno waxaan ka soo dooran karaa waa maxay line halkan ribbonka waxaan ka soo dooran karaa waa maxay qaybta drawga ee menu parka ama waa maxay waxaan keyboardkii ku qori karaa aan xarafka L soo wax garatay ma u taagan line ama waa maxay inaan dhamaystiro aan waa maxay spellingkiisa sidaas aabaan soo dooran karaa okay waxaan ir line-ka waxaan u sawiri karaa anoo isticmaalay Cartesian coordinate system coordinates anoo haysta soo wax garatay inaan waa maxay line-ka koowaad qaybta 00 line-kayga labaad waxa ay dhigtaa مثلا 100 ama waxa ay dhigtaa 200 ama waxa ay dhigtaa 150 170 ana coordinate saas oo kale tahay inaan waa maxay aan line-kayga u sawiri karo ama inaan u sawiri karo aan line-kayga anigoo isticmaalaya length iyo angle anoo isticmaalay inaan line anoo xadidaya waxa weeye length ama dhererka line-kayga iyo waa maxay angle-ka line-kayga waxaan u gudbayaa waxa weeye amarka labaad polyline-ka marka amarka labaad ee polyline-ka waa xaba kaga ma duwana line-ka balse trick yar oo waxa jira ay ku kala duwan yihiin bas soo waxa garatay maaha gadaal baynu ku arki doonaa markaan amarka sharaxno waxay ku kala duwan yihiin marka polyline-ka hadii aan doonayo waa maxay hadda waxaan joognaa aynu amarka labaad ee polyline-kan joognaa aynu polyline-ka hadii aan doonayo inaan soo doorto waxaad imaanaysaa qaybtan sare ee ribbon-kaaga waxaad arkaysaa line-ka inuu ku xigo polyline-ka soo wax garatay ma sidoo kale maxaan ka soo dooran karaa baan yiri qaymada draw inaan saa usoo furo aan polyline aan saa usoo doorto aan ama in aan keyboardkay ku qoro PL waxay usoo gaabsantahay polyline bay usoo gaabsantahay okay in keyboardkay ku qoro PL okay inta haddii aan dhaho soo wax garatay ma wuxuu ku leeyahay specify the first point waxa specify garaysaa point-ka koobaad waa sidii waa maxay line-ka hore usoo aragnay oo kale inuu leeyahay xadid point-ka koobaad meesha ku yaalo soo wax garatay marka number saan point saan kale oo random hadii aan doorto wuxuu ku leeyahay waa maxay next point-gaaga specify garee next point-gaaga specify garee next point-gaaga specify garee and so on waa maxay maanta waa maxay ku leeyahay next point-gaaga specify garee soo wax garatay qaybta hoose hadii aan imaado aan dhaho مثلا close aan dhaho waxa weeye waxa isku xirtaa shakligaygii soo wax garatay hadda line-ka xageyn jooga halkan waxaan rabaa inaan marka point-gaan ka soo bilaabaan ku xiro waxaan taabanayaa close ama waxaan taabanayaa xarafka C soo wax garatay maaha inaan C sa u taabto halka C ku qoro enter dhaho ama waxaan mouse-kayga isticmaalaya inaan halka xarafkan close aan imaado aan close u dhaho soo wax garatay shakligaygii saas soo ka xiro okay waxaad arkaysaa waa maxay waa line caadiya waa maxay amarkii hore oo soo aragay inuu saxbo kaga duwanayno مثلا hadii aan line sidaan oo kale shakli noocaan oo kale taa مثلا anoo isticmaalaya markaan line soo wax garatay xarafka L inaan qoro soo wax garatay maaha sorry حرف L line هنا سأصوت تعطو مثلا سلا الشكل نوعا كله تام شكل أولو يعني صور يعني استعمال line ka سواء قالت مسي أنا أرجعنا لغض فرقي وحقيقة كل توين close أيان ليها مسوق قبل أمانة ولي موسيقى استعمال أيان صاص سوي حريان مركز ضحى أكيد سعد لبا نفرجيز ومحمينا وحن كسوره وحويه line منا وحن كسوره ومح polyline محن كل دوين هنا هدي مثلا كان أم polyline كان كسوره هدي الموسيقى سأوسرويه وحد أكيد سعد إن هو محي صورا iftiimayo asagoo dhan waa maxay dareemaysa shay rigid ah oo is haysta inuu yahay hadii aan click siiyo waa maxay asagoo dhan inuu highlight ay u saarmayo laakiin hadii aan mouse-kayga مثلا aan kan kale aan ku sawiro line-ka hadii aan saa ugu soo dhaweeyo waxaad arkaysaa aad line kasta waa maxay ama corner waa maxay edge kasta inuu si gaar ah asaga waa maxay kaliya uu highlight u saarmayo saan oo kale hadii aan taabto waxaad arkaysaa ka kaliya waa maxay highlight saarmayo hadii saan oo kale taan dhaw mid kastaan waa maxay inuu gaarkiisa waa maxay oo highlight uu saarmayo soo xagarta ma kana waa la adeegsada kana waa la adeegsada laakiin anaga ahaan badana waxaanu adeegsan doonaa waa maxay mid kan kaleeto ama waa maxay polyline-ka soo xagarta waayo faa'iidooyin badan ayuu leeyahay waxa kamid ah مثلا inuu ku siinayo wax la yiraahdo center of gravity ama waa maxay center of weight-ka waa maxay shakliga kan soo xagarta ma center of weight-ka ama waa maxay shakliga kan xageeba center u ah
soo xagaratay ma marka maada dabcan waxa soo baratay structure la yiraahdo wada structure inaad markaad xisaabinayso structure CG da ama waxa loo yaqaan center of gravity dhibaatada u jirta waxa xasuusta inaad x iyo y soo xagaratay ma dhota xisaab x bar ama y bar soo xagaratay ma mucaadalo waa maxay equation xogaa dheer inaad qorto aad soo xagaratay ma hudhuti aad x y y bar aad waa maxay soo saarto kadibna aad cabirto xy inteebaan dhankan u soconaya x inteebaan y u soconaya si waa maxay hal point waa maxay center of gravity shakli ah aad waa maxay aad doorato aad مثلا aad waa maxay shakli noocan oo kale aad qaybiso aad u qaybiso waa maxay ashkaal aad garanayso مثلا soo xagaratay ma sida triangle iyo triangle oo kale inaad u qaybiso soo xagaratay ma triangle ka inaad gaarkiisa u xisaabiso kana gaarkiisa inaad u xisaabiso aad kana waa maxay center gravity soo saarto kana center of gravity ka soo saarto dhultiina waa maxay aad isku darto waa maxay si aad u soo saarto center of gravity ga shaqaligaan oo dhan marka process aad u dheer weeye maadada structure-ka pouring-ka aad ku dhibta badan soo xagaratay maaha aad ku soo baratay aad marka laakiin structure-ka qofkii fahma waa maxay civil engineer yani qof ma jiro qof civil engineer waa maadada structure-ka aan fahansanin ama qof مثلا designer ah soo xagaratay maadada civil engineer-ka aan fahansanin waa maxay qof طبعا انت حقيقي بسيب waa maxay bucdiga مثلا waa maxay beamkayga ama columnkayga haddii aadan fahansaneyn emissionkiisa haddii aadan fahansaneyn stresseska waa maxay beamkayga ama waa maxay ama columnkayga stress noocyo haysta midkeeba waa maxay shear midkeeba momentkiga see waan xisaabiyaa waa maxay shearka see waan xisaabiyaa hudhuti xadiidka waa maxay ama waa maxay reinforcementkiisa usoo saaraan yani haddii aadan fahansaneyn maadada structure-ka waa furahaagi waxaa iska noqotaa waa maxay site engineer waa maxay fuliye site ka shaqeeya marka يكسر موضوع إلى ديران حدوني waa maxay kaliya waxaan rabay inaan fahano waa maxay center of gravity muhiimada gaarku inuu leeyahay marka hadii مثلا amarka line oo kale aan soo doorto aan active ka dhigto amarkayga line hadii aan ugu soo dhaweeyo waxa weeye shakliga waxaad arkaysaa markiiba inuu ku siinayo point oo waa maxay pointigaas uu yahay center of gravity ya ahsan yani صح laakiin hadii aan waa maxay aan pointing ana wali line-kii active iyo hadii aan u dhaweeyo shakliga kaleeto min umri inta noolaha waa maxay heli center of gravity ga shakliga kan hadii aan doonayo maxay center of gravity giisa yani equationski waa maxay waxaad ku soo baratay structure-ki waa maxay dabaq kadibna waa maxay adiga waa maxay iyo braacadaada ku soo saar center of gravity ga okay marka muhiimada inoo leedahay waa maxay sidaan oo kaleeto midka ugu badan aan isticmaali doono mustaqbalkan waa maxay polyline-ka polyline-ka wax badan kuma kala duwan kaliya wuxuu ku duwan waa maxay in polyline-ka waa maxay shayga oo rigid kaaga dhigayo waa maxay soo oran isku ka haysto marka hadii aan doonayo dabcan polyline-ka inaan ka dhigo sidii waa maxay line-kan kale waxaan dhigi karaa explode ama waxaan burburin karaa soo oran ama waxa jira qaybtan sare explode ay ku qoran tahay soo xagaratay ma ribbon-kayga explode hadii aan intaan highlight saan kale taan usoo saaro aan explode aan dhaho soo xagaratay ma waxa uu imaanayaa oo explore hadii saa u dhaho kaleeto waxaad arkaysaa inuu sida line-kii kale noqonay mid kasta aan gaarkiisa highlight u saarayo soo xagaratay ma waa markii polyline-ka meesha ka baxay soo xagaratay ma marka ama waxaan taaban karaa explode-kan shortcut-kiisa keyboard-ka waxay noqonaysaa xarafka x hadii aan saa u taabto waxaad arkaysaa explode inuu ku leeyahay ama explode garay shakliga kan okay marka polyline-kana intaasaan kusoo koobaya insha Allah